فلا تغدموا عليه هجلوا من بلد كاس وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا وحبيب محمد كسولاتي صلى الله عليه وسلم إليه حبيب كل غشان داعوانك مجال إنه كدعي فلا تغدموا عليه هجلوا من بلد كاس وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها حبيب بلد كدعي أدنك وقود أحسننا هتبح منها كرانتينك وحاك سكتماتي رسولك ما شرفت بلد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إنه يري لا يريدن ممرض على مصح حديثك البخاري يرينا وكل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ممكن نجينا حنون سمح يستا يعني بدي ممكن جيل عافيمات كذا في اليوم يستا دي جيل جهنا لبينا جيل عافيمات كذا هذه جهن مرنا شريعة كوي بران سبتك عافيمات كذا جيجنت كل النبأ وحكى سورة عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وهو صحابي جليل الوباء كالنار وأنتم وقودها تفرقوا حتى لا تجد النار ما يشعلها فتنطفي فيشعر حكومة عمرو بن العاص يبها أما عور كفافة بلادا ودب أو كلاته دبكنا هديه يا قرية يحابة ويسكدنا أليك يحاتي قريه يحابة دبكا وكشبنا كلاته سي دبكا سي ويسيب كفياشها غفك عذرك قبا qof kastoo muwaadin Soomaaliyeed nafsadiisa waa inuu taxadir lahaada qof walba muwaadin Soomaaliyeed waa inuu wacyigelinta sida loo bixiyo uu qaataa wacyigelinta iska kaashanayaan wasaaradda diinta iyo qaabta maamulka gobolka Banaadir iyo xafiiska wasaaraha fariimaha caafimaad ay soo gudbiyeen dhaqaatiirta Soomaaliyeed iyo waxyaha caafimaadka ka wada shaqeeya in si sax loo qaato qof kastoo muwaadin Soomaaliyeed waxa loo baahan yahay inuu ka taxadiro naftiisa cudurkan waa cudur jira waa cudur adduunka oo dhan saameyn baaxad leh u geystay annaga haddaan nahay Soomaali inaan taasi aan aqoonsanaano cudurka inuu cudur jira yahay wax walba looga hortagayo ama fariinta lagu soo gudbinaayana muwaadin si sax ah u qaado iskaashiga hadda taagan looga faa'iideysanayo waxay tahay in meel kasta la gaarsiiyo cod baahinta oo rasmiga ah oo xaafad kasta ay maqasho dhawaaqa iyada ahayd waa la yiri ama aysan noqonin oo hawshaasna ku dawgalkeeda ee la socodkeeda wasaaradihii iyo gobolka Banaadir mas'uuliyiintooda la socon doonaan goob kasta oo aan rajeynayno insha Allah meelaha qaarna xadigan hadii laga gudbo in aan si gaar ah meelaha barakacayaasha daryeelkooda kale hawlahooda kale tashi badan baa yaala in wax laga gaaro ramadaan aan ugu soo socdo inaan feejignaan badan gaari doono insha Allah oo aan rajeynayno dadka Ilaahay wax siiyay in ayagana ay hawshan ayada wax laga hortagayo cudurrada ay kamid tahay qofkii inuu sadaqa la baxo oo wuxuu ka tagay la garanay waxa la yaabaa laba daar in aan leedahay boqolaal kun ay ku duugan tahay laakiin laga daaweyn karin maalintii ku soo asibta hawsha ayada waxaan rajeynaynaa insha Allah in arintan taagan awadeed in qof kasta oo muwaadin uu ka faa'iideysto maanta uu nool yahay bari lama noola nin kasta inuu aragti wanaagsan wixii bixinayo ee wanaag kala kaga qayb galo